أمانكو فرتي باسنو وكل فتي إيجي السك أنا اللي إجرا ما أنا كهري أنا اللي إجرا هذا ما ساس إيدي كرتاوه ساس درت وحبط وكل فتي dad kan ay soo deeyeen oo jaamadaadka ah gacan bir inay ku qabtaan حالة 8 ساعة سوق قلة مقالة حمر شعورتان إلا حالة إلا مانت واستغلاها waxa kaliya uu ku dagaaleen wara meeshan ana tinta la jiraaniyo meesha iga kacay iyo sheeka ka aniga ka soo horeeyay aka wata waa la doodi kartid aka ma wadataa waxa suubiyaysid suubniyo أنا إلا عدالة أن كان المدوقة فنجركم نوجر ويلكان isdaba joog ayay noqdeen dhacdooyinka la xiriira dadka shacabka ee dilalka u geysanayaan ama dilalka bararka ay u geysanayaan ciidanka dawladda Soomaaliya askari ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay inuu dil u geystay Sacad Cabdi Muuse oo ahay qof shacab ah isla markaana kamid ah dadka shacabka ee ku nool degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxa la sheegay inay isku qabsadeen tinta aniga ayaa ka hor jaranaya iyo aniga ayaa ka hor jaranaya sidaas daraadeedna waxa la sheegay inuu ku dilay sabab la xiriirta ama markii uu diiday inuu tin jaraha isagu hormariyo wiilkii waa u geeriyooday waxaana meedkiisa la keenay mid kamid ah isbitaalada magaalada Muqdisho caasimadda dalka laba ammaanka ee booliska Soomaaliya ayaana la sheegay inay gacanta ku dhigeen askarigii dilka geystay qaar kamid ah ehelada ayaana halkaani oo afaafka hore isbitaalka Madiino ee magaalada Muqdisho caasimadda dalka kula hadlay telefishinka SBTV iyada oo aan ma aragtay go'aan laga qaadanina in la aasay ilma ahan inkastoo laamaha amniga gacanta ay ku soo dhigeen ee kaalin fiican ay qaateen aad iyo aad ugu mahad celinayna waxa kale intoo baaq fiican ayagana u direena saddex ruux oo dawladda Soomaaliya ximno waaweyn ka ah oo kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ra'iisul wasaaraha mar walba waxaan qabato dhacdo nima la dilaa war dawladda sida hore way ka sii fiicnaanaysaa kii la dil midka qurux badnaa socdo marka ayagana waxa leeyahay dadkan ay soo deeyeen oo jaamadaadka ah gacan bir inay ku qabtaan waxa laga soo qabtay soo meeshi bartanka oo ku dilay waxa kamid ahayd isqabadka degmada Kaxda iyo degmada Dharkeeley isqabadkeeda ee dhanka laga soo qabtana waa dhanka Dharkeeley marka wiilka Allah u naxariistay ifka wuxuu uga tagay laba caruur ah marka magaciisana waa Sacad Cabdi Muuse kolba hadda booliis oo ay hadda markaa ku dhahayo ama waa booliis ama waa military laakiin ciidanka dawladda ahaa marka wax dagaal uu ka dhaxeeyay ma aysan jirin aqoon hore ee isku lahaayeen midna ma aysan jirin waxa kaliya uu ku dagaaleen wara meeshan ana tinta la jiraaniyo meesha iga kacay iyo sheeka ka aniga ka soo horeeyay aka wata waa la doodi kartid aka ma wadataa waxa suubiyaysid suubniyo أمانكو فرتي باسنو وكل فتي مركا دولة تتكاسي نقصو ديسي مركا تتكاسي إنه كعبر كوقبتانها إسكو ديان بسم الله والك دعاء كل دعاء أفضل حوية السجوا محل ده بالبيرو أو جو من حجرة أو جوجو نن أو بوليس أسكرت كمد أو يرم على ده يجي السك أنا اللي إجرا ما أنا كهري أنا اللي إجرا هذا ما ساس إيدي كرتاوه ساس درت وحبط وكل فتي أنا وحن كربنا لامها أمنية دولة الفدرال كم حسن شاق وحن كربنا وقدونك قبل إن ويلكاس أنا نلقاش إن عدالة أنا حلنا عدالة أنا حلنا دولتكم الجارك وحن كربنا عدالة أنا كهل شعور نكى ولا سوق بت ولا حري ساسا هذا أهم قال إنه حرية هاي وحربنا إن عدالة نكاس ويلكاس إن الأمري ما أنت حالة 8 ساعة سوق قال مقالة حمر شعورتان إلا حالة إلا مانت واستغلاها نكاس وعربنا والكيان الدلي إن محلتها عدالة إن لو مري ويل كان حق حكومية هاي اسبتال مدينة هذا ماشان جوجنا اسبتال مدينة جوجنا في الجيران قلنا ها اسبتال مدينة نقصوها في الجيران كوجرا أنا إلا عدالة أن كان المدوقة في الجير كنا كوجرا ويل كان عدالة هذا هلنا مركز ودوقنا وحكى لو كده حيا ملا انتاس كله كدلي وحكى له هذا اللواد ودحيانا ملا انتاس كله أنا كهرة يكع كله كدلي ويلكن ومرحوم كاس وسعد عبد موسى إله أون حريصه كتاب كيس قعنت مدق إله كسيه عدالتنا إله ورجلنا إله عدالة فلكرة أنا عدالة أوهل عبد القادر برا SBTV مقدشو